Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaana wanaagsan meel kastoo joogtaan iyo si walbood ila socotaanba walaalaha channelka dhaqankaaba ku xiran dhammaantiin salaan qaaliya ayaan hawada idiin soo marinayaa. Rabadaan mubaarak. Waxaan rajeynayaa inaad ii wacan tihiin, inaad ii wanaagsan tihiin, intii xanuunsan ilaahay subxaana watacaala caafimaad sariica ha siiyo. Rabadaanka ilaahay barwaaqo iyo nabad iyo caafimaad ha noogu dhameeyo. Intaa kadib walaalaha qaaliga waxaan idiin soo gudbinayaa haddii Allah awoodda la idmo muuqaal ku saabsan reer miyigu ama reer baadiyaha dadka miyiga dega jadwalkooda rabadaanka ama rootiinka saa u taqaanin waxyaabaha ay ku afuraan. Mawduucan insha Allah qaybtii koowaad buu noqonayaa insha Allah suxuurtii iyo weliba afurka oo intaa ka duwan oo maxay tahay dee reerba waxbay ku afuraan, reerba waxbay tahay tabartooda sidii magaalada la kala yahay ayaa halkaana la kala yahay. Marka insha Allah mawduuc ku saabsan afurkii reerkii miyiga ayaan idiin soo gudbinayaa haddii Allah awoodda la idmo. Intaana mawduuca barnaamijka uu sii gudagelin waxaan ka codsanayaa walaalaha qaaliga inaad subscribe ka saartaan haddii aadna subscribe idin saarnayn ama uusan subscribe idin saarnayn channelku. Sidoo kale mawduuca markaad dhammaysataan like tahay ilmaaminina. Intaa kadib haddaan mawduuca u soo laabto maasha Allah miyigii oo jawi qurux badan roob iyo rays leh ayaan joognaa. Waxaan hadda diyaarinaynaa afurkii galabtay reerku uu karsan lahaa alaabtii marka lagu diyaarin lahaa. Saacadu hadda waa duhurkii xilliga duhurkii la tukaday. Marka waxaan sameynaynaa haddii Allah awoodda la idmo jeega idiin muuqda dabcan jeeg baan u garanayaa. Laga yaabo in dadkay daawanaya wax kale u garanayaan. Marka jeega reerku waxay ku qasanayaan cajiin ama canjeelo sida u taqaanaan. Marka afurku galabtu waa canjeelo. Insha Allah aniga ayaana samay doona. Marar badan waxay dhahdeen dadka oo kaliya ayaa duubtaa laakiin dee adiguna maxaa dhacay wax u samay weysay. Marka insha Allah aniga ayaa sameynaya aqalkii ayaan soo aaday. Waxaan soo cabiranayaa marka cabirka burkana waa liisii reerku intay qasa jireen. Marka aqalkii baan soo galay. Halka aad u jeedaan waxaa la saaraa kashkash baa loo yaqaanaa. Reerkuna raashinkay saarsadaan. Laga yaabo inaad magac kale u garanaysaan. Marka burkii baan hadda jeega ku shubayaa. Dabcan inta badan magaalada markii la joogo waxa lagu qastaa caag baa wax lagu qastaa oo loo yaqaano caaga cajiinka. Laakiin reerkan uu jeega ay isticmaalayaan kolay inta badan miyiga waxaa ka jira qorrax aad u badan. Marka caaguna inta badan cimri ma lahan. Jeegana sida la og yahay dee waa hayga dhiman. Marka waxaan maleynayaa reerku jeega waxay ku raaceen marka inuu samaligiis uusan ka dhamaanin. Burka intaa bay reerku qasanayaan. Maasha Allah reerku waa reer aad u badan. Dadka badan aniga xitaa qayb baan ka ahay reerka ku soo siyaaday. Marka maasha Allah burkii waa naga burkii soo qaadanay. Galabta afurka waad ila samay doontaan, waad ila arki doontaan. Insha Allah ayana lay soo maagin. Waxaan ku yiri sidaan markaa wax u sameynayo. Runtii way kala duwan yihiin miyigii iyo magaaladii waxyaabo badan bay ku kala duwan yihiin. Inkastoo waxa la cunaya isla wixii ay cunayaan oo reemiyigu ay haystaan wax allaale wixii magaalada yaalay. Haddana qaarkood waa lagu kala duwan yahay qaabka loo sameynayay laakiin waxa lagu kala duwan yahay qaabkii loo sameynayay. Magaalada inta badan dhuxul ama gaas baa la isticmaalayaa laakiin halkan waad u jeedaa horta jikadii maasha Allah iska bartaa jikada ayaa wax lagu samaystaa reerku degan yihiin. Marka maasha Allah runtii waa jawgii miyiga qofkii miyi ku soo koray ayaa garan kara inkastoo reerku ay casri iska yihiin. Dadka qaar dhowr mar oo muuqaalo soo geliyo waxay ugu dhaheen reerkan waa reer magaalo u dhow magaalo anaga nooma dhawa waxa weeye magaalada dee marka la aadayo beel baa loo raacaa ama baabuurtii miyiga ayaa loo raacaa. Marka laakiin dee reer miyiga ayaaba qaarkood sidii magaaladii u dhaqma. Hadda waxaan soo doontay biyihii haddaad arki jirteen reer miyigu inay dhaansadaan haaman way jiraan horta aad bay u badan yihiin reer miyi badan baa haamankii dhaansada. Laakiin qaarkood waxay u badan yihiin fuusada idiin muuqata ayaa la dhiganayaa. Sababtoo ah haamankii awrtii ayaa yaraato dadkii dameera ayay barteen. Dee dameerkiina markaa waxaa dhacaysa in la saaro birtii iyo haanta la saaro kadibna biyaha lagu soo dhaamiyo. Reerka laftigooda barkad baa u dhow meel dheer biyaha lagama doono. Biyihii inaan dhuuqaan damcay ama shubo waan shubi waayey. Marka gabadha ayaa ii shubtay waxa weeye waxaa ma garanayo ceeb maaha yaa. Haddana dee qofku markuu sooman yahay wuu cabsanayaa. Marka maasha Allah haanta ayaa biyaha lagu dhaamiyaa inta badan. Anigii markaa saddexley soo dhaansaday. Haddana waxaan bilaabaynaa cajiinkii inaan qasno. Cajiinku dabcan sidii magaalada loo qaso baa loo qasayaa kama duwana. Waqtigu waa waqti roobow ah. Xalay baa waxaa noo daay roob maasha Allah dhulka rayska ka garanaysaan. Qorrax ma jirto. Marka in yaroo fixisa ayaan ku darsanayaa haddii Allah awoodda la idmo.
kadibna waxaan sameynayaa insha Allah dee wax kale cajiinka laguma darayo ama canjeeladii in yaroo cusbaa iyo intii yarta ahayd oo fixisada ahayd iyo dee sidii markaa islaamuhu u garaaca jireen magaalada ayaa loo garaacanayaa cusbadii ayaan ku darayaa sida hadda aad u jeedaan reemihiigu inta badan cusbada ma badsadaan laakiin sonkorta ayay waxay ku qabaan waa loogu duceeyey wax kale inkaaryaana dhihine sababtoo ah magaalada inta badan waxyaaba dhadhanaanka ayaa laga jecel laakiin halkan marka wax samaysanayooda dhan weliba hilibka dhan oo la karinayo waxaad arkaysaa reer dhan oo hilib karsanaya oo hadday doonaanba aan cusbo ku darin laakiin dhanka sokorta waa saa'id sidaa u jeedaan canjeeladii baan qasayaa haddii canjeelada sida magaalada unbaa loo garaacayaa jeega gacantooga iga dilayaa runtii sababtoo caag baan u bartay marka maasha allah reer kusaan ii sheegay way badan yihiin aad bay badan yihiin malaha 2 kiilo canjeela ayaa meesha lagu shubay marka intaana aniga ii sugaysaa inaan sameeyo waadna ila arki doontaan canjeeladii waan soo qaaday waxaana canjeelada la dhigayaa meel yar adiga lagu qoraxeeyo meeshaas qoraxda ayaa la dhigayaa qorax maba jirtaba waa la iska dhigayaa cawdka maahane wax qorax la yiraahdo iyadoo saacadu ay dee duhurkii tahay ayayba qorax dhan jirin sidii ilaa xaal lagu seexday ay tahay marka hadda maxaan doonaynaa waan soo baxnay shaqadu waa noo bilow canjeeladii baan soo qasanay xaabo ama qoryo saa u taqaano ayaan doonayaa maadaama anigu aan la wareegay afurkii markaa la iga kala fadhiistay oon iri bal aniga gabar iska dhigaya qatare yaa aniga afar kala kacsan soo kala tuuraya marka dhibka ugu daran waxay tahay horta markii banaanka qoryo loo doonayo waqtigii horaan miyiga kusoo korana dee waxyaabihii kolley gabdhihii halkaa kusoo koray ayaa garanaya waxyaabaha ugu adag waxay ahayd markaa in xaabo ama qoryo la keeno walow waqtiga aad loo heliyey laakiin hadda lama arkayo dhulkii waa la nabaad guuriyey qoryihii magaalooyinka ayaa loo iibgeeyey markaa lama helayo qoryaha dhib badan baa laga marayaa dhibaatada haysta waxay tahay geedihi inay maryaha iga dhegdhegayaan sababtoo ah dee anugu hadda muuqaal baan duubayaa markii miyiga la joogo reerihii la joogo garbasaar yar ama gooyar baa laska xiri jiray kadibna markii duurka la wareegaya inta hareeraha laga tuuro oo maxay tahay dharka guntiga la gashto ayaa wixii markaa xaabada iyo haddii ariga tahaba meelaha la soco jiray laakiin anugu maadaama aan dee muuqaal duubayo oo rag badan i daawanayaan xijaab baan xiranahay markaa anigaa la dagaalamaya hadba markaan tilaabo qaadaba geed baa iga dhigaya horta waa halkaa meesha qoryaha laga doonayo runtii wax badan baan warwareegay waan waayey qori weyn geeduhu iska kay ma aqaan dee waxay u malaynayaa inay iska kay jeclaadeen qoryihii baan la dagaalamaya markaa qoryo ma lahan dhulka saan idiin sheegay geedihii waa iska nabad guureen dadkiina dee reerku waa reer in badan meesha deganaa geedka hadda markaan gooyey geed qoyan buu ila noqday dee xoog baan usoo jaray geed qoyan buu noqday waan waayey runtii qori qof weyn qaado waan waayey markaa xaabo yar baan iska aruursanaya runtii waadna arki doontaan islaanteeda dhana weyne intaa la ege maxay tahay dhirirka intaa la eg siday maanta dhan u wareegaysa ugu dambeyntii xaabo yar ayay qaadaysaa xaabadii marka anagu miyiga joognay ilmaha yararka ah 4 jirka 5 jirka waxaa raaca soo aruuri jireen ayaan geyn doonaa waayo dee intaadna adinku ila yaabin anigaaba hadda idinsii sheegaya oo maxay tahay kasii hordhacaya sababtuna waxay tahay kow dee inaan qoryo waaweyn waayey oo maanta dhasaan u meeraysanayaan qoryaba waayey iyo anigoo meel dheer sii gaari waayey dee rabadaanka ay haya marka meel yaroo cidda cabaar u jirtan baan xaabadii iska soo aruursadayoo anigaa soo cararay waqtigu wallaahi maasha allah jawigu aad buu macaan yahay roobka hadduu noo da-ay geedii weli ma soo bixin xalay unbuuba da-ay markaa gurigii baan nimid oo xaabadii baan soo qaatay naagteeda dhanee weyn bal xaabada sidata wallaahi anigaas la yaabay laakiin dee dhib ma lahan waa iska soonsoonoo layma qabanaye waxaan ku iri maasha allah inkastoo soonka uu miyiga ku fiican yahay markii roob ay tahay runaantii miyiga ama baadiyaha ayaa soonka ku wanaagsan saxansaxadaas iyo maxay tahay rayskaas ma dareemayso waa nolol aad iyo aad u qurux badan xaabadii jikadii ayaan keensanay maasha allah markaa waadinkaas soo arkay hadda saacaddii casri baa lasoo tukaday 10 saac ama 4 galabnimo waxaan diyaarinayaa markaa inaan dee aan afurkii diyaariyo waad ila arki doontaan dhowr dab baan shidanaynaa jikadiina waa taasaa waxyaroo boobsiisoo xaaqin yar baasaa lagu boobsiiyey xitaa si fiican looma xaaqin waxa weeye dee markii la sooman yahay shidaalka subax horaa la haystaa laakiin galabtii bilaa shidaal baa layahay marka maasha allah haddaa dhardhaar baa loo yaqaanaa waxaa koley inaad wax kale u taqanin laga yaaba qaarkiin lahjadaha laakiin af soomaaligu sida uu badan yahay waa iska dhardhaar marka 2 dhardhaar baa ii shidan haddii 2 burkujo aad shida jirteen dadkii magaalada joogay
ama laba shoolada laba meelood laga shidi jiray. Hadda anagu waxaan ku dhagaxdaas baan haysanaa, laba meelood baa la shidaya, meel sheexi baa la saaraya, meel canjeeladii. Hadhowdiina waxaa noogu xigi doona maraqii aan canjeelada markaa ugu talagalnay. maasha Allah xabadii aan keensadana waa taasaa. xabadu markaa waxoogaa qoqoyaan baa iskaga jira, laakiin way iska bixi doontaa, waan qasbi doonaa insha Allah. Markaa afurkeena sidaas ayuu ku socdaa. Qoryaha waxay ku jiraan booska gaaska kale ayay ku jiraan marka la dhaho dhanka boobsiiska, waayo anigu runaantii dhuxusha waan nacabahay. dhuxushu marka ay noqoto boobsiista cuntada dhuxusha lagu sameeyo ay ka macaan tahay cuntooyinka kale la boobsiiyo ee gaaska ama qoryaha lagu sameeyo ay ka macaan tahay. haddana mar walba waxaa ka fudud haddii aadan gaas helayn qoryaha inaad isticmaasho. qoryuhuna halka cillad ay leeyihiin waxay tahay qiiqa. runtii anigu weliba aad baan u necbaa inta maanta dhan qiiqa aan wax ku karinayo, waxaad moodaa in la dilay. weliba hadda waan sii hilmaamay, waayo dee dhowr iyo 10 sano anigu maxay tahay qoryo wax kuma karin ama miyi ma aana joogin, anigoo yar baan ka tegey. sidaasoo taa marka qoryaha waan jeclaa markay noqoto dhanka boobsiiska, laakiin dhanka qiiqa markay noqoto aad iyo aad baan ku yiri indhaha iima roona. waniga hadda iska babinaya, waxa alaal wixii iga hor yimaadan baan ku babinaya, xitaa reerka babis ma leediin midna ma dhihin. inkastoo miyi markaan joognay babisi waxa baan la isku mashquuli jirnay, la afuufi jiray. runtii waxyaabo badan baan xasuustaa dee waagii aan baadiye joogay. marka maasha Allah xabadan baa halkaas ka jabinayaa. hadda bilowgii labadii maxay tahay dhardhaar. hadda tan soke waxaan ku sameynayaa canjeeladan ku sameynayaa tan soke, tan shishana waxaan ku sameynayaa oo sii saaranayaa shaaxi. marka waxaan rabaa inaan isku sameeyo waxa dhanba saacadu marka waa 4 galabnimo ama 10 saac oo galabnimo. waxaan rabaa isla 5 barkaba inaan ka faaruqo kiishkii canjeelada u jeedeen ama jeegii canjeelada u jeedeen iyo maxay tahay iyo shaaxi weliba wixii lagu cuni lahaa maraqii. insha Allah marka intaas oo dhan waxaan rajeynayaa inaan kusoo dhameeyo, kusoo afjaro saacad iyo bar inaan kusoo dhameeyo. saacadda ii xiran waa u jeedaan waa saacadihii gabdhaha maasha Allah miyiga jooga ay aadka u jeclaayeen. magaalada laftigeeda waa laga xirtaa, laakiin dadka magaalada jooga dee saacad yar marka ay xaraga u qaataan maahana inta badan saacad lama fiiriyo ama lama eego oo telefoonada ayaa laga fiirsadaa. laakiin runtii saacadda anigu aad baan jeclaa, hore ayaan usoo qaatay. markaa saacadii bar baan rabaa inaan fur kusoo kala tooro. kirligii aan jeclaa ama jalmadiisa u taqaanid madoobaa shaaxeeda macaanka ahana waa kaasaa. marka hadda waxaan diyaarinayaa shaaxii ayaan saarayaa, reerku kirliga ay shaaxa ku saarsadaan. halkaa dhagoola ayaan kaga muuqda, dugsiinta dhan idiin muuqata ama alaabaha wax lagu karinaya idiin muuqda, way wada madow yihiin oo calaamad gaar ay leeyihiin. waxaa laga yaabaa dadkeena reer magaalka inay qaarkood is dhahdaan alaabta ma iska sifeeyaan, maxay tahay waxaan maya alaabta lama sifeeyo. runtii waxaan ma dhihi karaa horta kirliga markay noqoto madowga oo madowya ayuuba shaaxiisa macaan ku noqda, waayo shaaxa magaalada nahaba ma lahan. idin sheego xigmad kaloo ah haddii mar walba la sifeeyo alaabta haddana qoryo lagu shidayo marka dambe dee alaabtii ayaa waxay noqonaysaa inay duleeshanto, waayo dabka tan badan baa la saarayaa. biyuhu waa dhammaad marka maadaama tubadii markii hore aan ku dhuuq waaya hadda waan soo jaleeciyey waan ka shubtay. soomaalida wax walba degdeg ama xoog ayaan jecelnaa inaan ku dhammaysano. waa kirli ama jalmad kiila karis ah. yaa reer miyigana saan idiin sheegaa dee sokorta way ku waalan yihiin. maasha Allah marka waan iska boobsiinaynaa. haddii Allah awoodda la idmo saan idiin sheegana waa lasoo kala tuurayaa haddii Allah awoodda la idmo. marka waxyaaba ay la madow yihiin haddaan kugu soo celiyo alaabta miyiga waxay tahay haddii dee shayga mar walba la sifaynayo oo qoryo badan baa lagu shidayaa, yacni dab aad u badan oo magaalada shoolad ayaa la isticmaalaya ama wax yaran baa la isticmaalaa oo shaygii aan wax badan ka korin. laakiin miyiga qoryaha aad baa loogu shidayaa ilaa uu ka kormaro shaygii. marka haddii la yidhaha mar walba waa la xoqayaa oo maxay tahay madowgaa laga fujinayaa, dee shaygii cimri ma yeelanayo. marka dambe shaygii waxaa loo tegayaa dee isagii baa sidii ku dhammaanaya. marka intaa hoose ayaa laga dhaqaa, korkaana ma jiro. laakiin reerku markuu cusub yahay ama matalan ay aroos oo kale ay yihiin, hadda reerkan waa reer iska xaasee waxay sameeyaan saliid baa korka laga mariyaa. markaa saliidda korka laga mariyo madowga ma qabsanayo. marka maasha Allah waa idinkaa u jeeda walaala qaaliga canjeeladii iyo jawigeena saan u dubanayno. miyigiina canjeela laga cunayaa, waayo dee magaalada wixii yaalay hadday qudaar ahayd iyo haddii cunto ahayd intaba magaalada wixii yaalay baadiyihiina waa la geeyay. iska dubanaynaa labadeedii dabna waa kuwaa halkaa igu kala baxaya. jawgana waxaan kuri lama malay karan kuri jawga caadi ma ahan. saan idiin sheegay awal baqiiqa ayaa i dhibayay, maantana waa la babinayaa. canjeeladina waxaan kuri waa ka qaasaar waayo dab fiican baa haysataa, waa saaraysaa waad ka qaadaysaa maasha Allah. runtii
canjeelo dubow dad badan baa aad u neceb weliba gabdhaha magaalada jooga way neceb yihiin anigu runtii markaan yaraa canjeelada aad baa u nabcaa ilaa haddana canjeelada xitaa cunadeeda ma jecli roodhiga ama rootiga ayaan cunaa markaan yaraa waa nabcaa jiray anagoo reer miyiya inkastoo reer miyi meelo fog degan aanan ahayn oo dad tuulo ka agdhow aan ahayn haddana canjeelada markay noqoto adduunka ugu nabcaa jiray shaahii baa noo soo karkaray muuqaalka qayb baan ka jiray laakiin waxaa igu dhacday kirligu aad buu u buuxay iyo anigoo markaa canjeeladii la dagaalamaya inaan lug iska gubay alxamdulilah dhib ma lahan markaa shaahii horta waa nagaa diyaarsanay digsigana waxaa noogu jira maraqii canjeelada aan ugu talagalay gabar baa ii soo diyaarisay oo yaanyadii iyo maxay tahay basashii iskugu kay sii jarjartay aniguna baradhadii baan sii diyaarsanay canjeeladii baan dubayay shaahii baan karinayay markaa maasha allah shaahii wanagaa shaahii karsanay walow aan lug iiga daatay way iska fiicnaa doontaa marka maasha allah shaahii waxaan ku ridee hal koobo sonkora aan la yaabo lagu daray runtii lagama sheekeyn karo sonkorta waxyaabaha ugu daran horta miyiga noloshiisa waxyaabaha isticmaalaan aad baan uga helaa laakiin marka laga reebo sonkorta oo waxa weeye dee sonkorta wax aad u wanaagsan maaha laakiin ayakana aad bay u jecelyihin laakiin halka mid ay kaga baxda waxay tahay way lugeeyaan lugtaasay kaga baxdaa marka maasha allah jawigeena galabta waa kaa halkaa waxaa noo saara maraqii halkaana waa naga shaahii tarmuuskii waan diyaarsanay canjeeladii waan dhammayn rabnaa maxaaba naga dhimanba dee intaa ayaa galabta lagu afurayaa iyo maxay tahay timirtii reerku halkaaba cabitaan ku qasanaa halkaa noogu qasbaa la yidhi anna waxaan idhi amar dowla mudaac waxaa u jeedaan baraf ma jiro baraf soo qaba ma lahan caag dahaar ama caag shaqlan saa u taqaanid runtii aad buu u qabow yahay waxaa ilaahay mahadiisa xilli roob inaan kusoo aaday runaantii aniga xilliga kulaylka ama xilli kastaba barafka aad magaalada markaan jooga dee biyo baraf loon baanba ku noolaa laakiin jawigu iska qabow yahay muuqaalka mugdi buu noqday waayo cirka daruur badan baa saaran markaa cabitaankii halkaa ayaa lagu qasaya halkaa ayaa lagu diyaarinaya garaafaha weyn markaa isagaasaa lagu diyaarinaya reerkuna waa iska badan yahay markaa maasha allah anigaa soo qaaday sajaada ama xasiga halkaa yaala ayaan kusoo diyaarinayaa qoraxda weli ma dhicin adin ma jiro qoraxdaa markay dhacdo ay godka gasho ayaa la afurayaa muuqaalku waa iga dheeraaday marka walaalaha qaaliga dee intaan wixii soo diyaarinaya wixii oo dhan soo dhammaynayo unbaa harsan koley way la soo aragteen canjeelo iyo marqunbaa maxay tahay meeshii lagu afurayaa insha allah reer miyigu ma wada haystaa intaa laftigoodu dad baa biyo iyo bariis cad ku afuraa iyo waxyaaba kaloo markaa aan bahaysan intaba waa idinla wadaagi doonaa qeyr badan baa idiin rajeynaya like ta saara muuqaalka haddaa dhammaysateen subscribe-kana saara tan iyo intaa ku kulmi doona sidaas iyo nabaadi